waxaan isku dayeynaa inaan dul marno aasaasiyaadka cilmiga xisaabaadka iyo maaliyadda. waad garan kartaan ma aha 3 saacadood wax lagu dhammayn karo, laakiin insha allah waxaan isku dayeynaa inay inoo noqoto hab aan ku ogaan karno horta farqiga u dhaxeeya cilmiga xisaabaadka iyo maaliyadda. dad badan ayay iskaga dhex qasan tahay waa maxay xisaabaad, waa maxay maaliyad, what is accountancy, what is finance, inaan ku kala ogaano, inay xataa u noqoto ardayda iyo didiilo ah nuuca ay kariye ahaan ay maaragtay xiiseynayaan insha allahu tacaala, kariir ahaan nuuca ay xiiseynayaan inay ku kala ogaadaan. accountancy waa cilmi keligiis bad ah, financen sidoo kale. maanta insha allahu tacaala waxaan isku dayeynaa inaan falanqeyn rasmi aan u sameyno si aan u ogaano, waa mahadsantahay, si aan u ogaano insha allahu tacaala discipline ahaan keebaa kugu habboon, adiga keebaa kugu habboon inaad barato, keebaa kugu habboon inaad ku shaqayso, keebaa kugu habboon in aad uga faa'iideyso shirkadaada adiga aad leedahay milkiyadeeda, qoyskaaga iyo shaksi ahaantaadaba. ilaah hadduu idmo. waxaan dul maraynaa marka contentska ama ma aragtay fahraska seminaarka maanta. lecture ugu horeeyo waa the difference between accountancy and finance. lectureka labaad waa bookkeeping ama waxaa loo yaqaana diiwaan haynta. lectureka saddexaad waa xisaabaadka maaliyadda ama financial accounting. lectureka afraad waa taxation ama nidaamka canshuuraadka. inkastoo nidaamka canshuuraadka wadanka weli uuna fariisan inaan baranno oo mustaqbalka shaqooyinkaas markay soo baxaan waxaan ku shaqo tegi karna ay noqoto aad u wanaagsan tahay. nidaamka hantidhowrka ama auditingka loo yaqaano, nidaamka loo yaqaano management accounting ama xisaab taakulaynta maareeyaha. management accounting waa iyada naftirkeeda bad, marka waxaa loogu talagalay golaha sare ama board of directorska in lagu caawiyo go-aan inay gaaraan, ay ganacsiga go-aan u gaaraan. marka waxaa dad professionals ah oo accountants ah ayaa u dejinaya waxyaabaha hoos yimaada management accounting oo dhan. marka xisaab oo waxaa waaye taakulaynta maareynta weeyaan management accounting. markaan idhahdo financial accounting muxuu ahaa xisaabinta maaliyadda, tanna waa taakulaynta maareynta ama golaha sare ee markaasi maamulka u ah shirkadaas ama hay-adaas ama dowladdaas, nuuc kastaba way noqon kartaa. lectureka kale aan kusoo jeedin doonaa insha allah budgeting process ama odoroska. odoros waxaa la yihahdaa waxyaabaha markaad aad saadaalinaysid 12 bilood oo soo socota, caadi ahaan waa short term. strategyna waxaa la yihahdaa markaa long term ama qorsho dheer oo 5 sano iyo wax ka badan aad diyaarinaysid. marka odoros ahaanna waa fiirin doonaa insha allah. financial planning oo ah topic kale. financial planning waxay noqon kartaa mid shakhsiyadaada aad u qorsheyso, waxay noqon kartaa mid qoyskaaga aad u qorsheyso maaragtay maaliyadda, waxay noqon kartaa mid ganacsiga qudhiisa aad maaragtay aad u qorsheyso ganacsiga. waan mari doonaa insha allah. investment appraisal waxaa la yihahdaa ama qorsheynta maaragtay ama qiimeynta aan idhaahde maaliyadda maaragtay ama maalgashiga ayaan fiirin doonaa insha allahu tacaala. investment appraisal waa barnaamij muhiim ah oo qeybta financiga soo geli doona insha allah. financial management oo iyadana ah maareynta maaliyadda iyo governance, hagidda hay-adaha, shirkadaha, hagidda shaksiyadaada xataa maaragtay insha allahu tacaala. skill badan ama xirfad tiro badan ayaad ka faa'iidaysan doontaa qaabka loo hago hay-adaha ama qaabka naftaadaba aad u hagi karto. waxaan kusoo dhammaystiri doonaa ama kusoo afjari doonaa istraatiijiyadda. ilaah hadduu idmo istraatiijiyadda ayaan kusoo afjari doonaa. marka cashirkeeni koowaad aan si toosa u gudagalne, what is the difference between accounting and finance? jawaabo badan ayaa maaragtay kaa dhex guuxi kara ama maaragtay isweydiin kartaa. accountancy and finance caadi ahaan mar walba waa la isku qabtaa, maxay ku kala duwan yihiin? accountancy marka aan eegno, recording, maintaining and reporting ayuu qaabilsan yahay. recording waa diiwaangelinta xisaabaadka financial transactionska ama mucaamalaadka oo ganacsigaasi
أو فرها كل جرا أما أو لا تعامله ما عد الله عد ولا تعامله نعلى كستور نعضه وإن الريكورد جريا وإن للديوان جريا وحي كبلاونيسا إن شاء الله وارك دونا بوكيبينك كبلاونيسا إن وحي هرت للديوان جريو wax walba dhaqdhaqaaq kasta oo ganacsiga uu sameeyo hadaan la diiwaan gelinin in la xusuusto way adag tahay waqti maartay markii laga soo wareegto kadib marka diiwaan gelintaas naftarkeeda waxay u baahan tahay hab iyo qaab loo diiwaan geliyo oo dad u soo tababartaan maintenance sidoo kale ilaalintii waxay ka mid tahay xisaabaadkay ka mid tahay iyo reporting in cidda meesha milkiyada u leh ama saamiga u leh ama daneynaysa stakeholders aan isku dhahnay daneeyayaashoo dhan waa in loo tabiyaa muddo cayiman kadib caadi ahaan 12 bilood weeyaan every year waxaa lagaa filanayaa wixii la soo qabtay iyo dhacdooyinkii soo dhacay in aad u tabisid ciday wax ka go'aan waxaa laga yaabaa ganacsiga adiga inaadan lahayn oo lagu aamino lagu dhiibtay oo maareeyo aad ka tahay waxaa laga sugayaa marka ciday ku dhiibatay in ay u soo celisid amaanadii oo aad tiraahdid sanadkan waxaan qabanay sidan waxa dhacay sidan booskeena halkan uu taagan yahay adigoo maaragtay diyaarinayo waxa loo yaqaano statement of financial position ama financial statements ka isku wada dhahno statement of financial position waxa waaye waa bayaanka heerka maaliyaddaada markaas ay marayso waa waqti go'an point in time maalintaas December haddaad go'aansato December 31keeda inaad xisaab xidhka sameeyso maalintaas ayaa maaragtay aad taagan tahay daah ayaa laba dhinac ka jiro maalintaas ka sheekeynaysa maanta xisaabteenu waxay maraysaa heerkaas xisaab kale jirto oo la yiraahdo income statement ama statement of profit and loss loo yaqaano oo ka sheekeynayso dakhliga iyo kharashka sanadkaas performance wax qabadkii sanadka ayay ka sheekeynaysaa 12 bilood oo soo dhaafay waxaa jirto statement of cash flows la soconno oo iyadana socodka lacagta ka sheekeynayso iyo inuu businesskaasi yahay liquid mid maaragtay wax qaban karo wax socon karo oo lacag cash ay haysto lacag cash hadaadan haysanin maamulka ama ganacsiga way adkaanaysaa bani aadan kuba bilowgiisii hore wuxuu baay qabay barashiyowkee yuu kaga bogtee bani aadan kuba bilowgiisii hore wuxuu baay qabay barashiyowkee yuu kaga bogtee